السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا قيمة بدن كسو هذا مقال قيمة بدن فضلا هديات كعصب تاجانا كان سبسكرايب إنه صار مقال كان لايك صار قيبت هوسيكم تسكن إنه الودا بيحي فكري فعلا يديري قلنبا ما السنة ما تمقال كينا وحان أغهل دونا أرين كسابسا فالنتين دي أما مالين تجعلك أدونك سيدا تقانبا fikirka halka uu ka yimid iyo diinta islaamka waxa ay ka qabto arinkan ayaa maanta uga hadli doonaa muuqaalkeena waxaan rajeynayaa insha Allah haddii aad daawato muuqaalka inaad ka heli doonto aadna wax badan aadan ogin ka ogaan doonto mahadsanid laga yaabay inaad horay u maqashay in Valentine Day lagu magac daray qofka ay awliyada ka aaminsan yihiin Roomaanka ee St. Valentine laakiinse run ahaantii waxaa jira jahwareer ka taagan arinkan Valentine sida laga soo xigtay history.com waxaa jira ugu yaraan 2 qof oo lagu magacaabo Valentine mid ka mid ah waxa uu ahaa wadaad masiixiya oo Rome ka soo jeeda qarnigii 3aad Valentine-kan ayaa ka hor yimid amarkii Emperor Claudius ee guurka wuxuu sheegay in uu guurka mashquulin karo askarta da'deer isla markaana isaga ayaa sameynayay guur sharci dara ah ee lamaanayaasha asagoo sheegaya in uu badinayo jaceylka kadib waa la qabtay waxaana lagu xukumay dil toogasho taariikhyahano kale ayaa si kale u sheegaya oo ah in Valentine loo dilay isku day uu ku caawinayay masiixiyiin ku xirnaa xabsiga Rome iyo run ahaantii isagoo soo diray fariintii ugu horeysay ee Valentine laftiisa inta uu xirnaa isagoo qoray warqad uu ku saxiixay from your Valentine maalinta jaceylka adduunka ayaa asal ahaan ka soo jeeda cibaadadii hore ee jaahiliinta inkastoo taariikhyahanada qaar ay aaminsan yihiin in maalinta jaceylka adduunka ay xusto dhimashadii hore ee St. Valentine ee 14 Febraayo qaar kale ayaa aaminsan in dhab ahaantii ka soo jeedo xafladda bacriminta taranka ee Lupercalia taa oo 15 Febraayo lagu qabtay Rome waxaa loo hibeeyay ilaahayga qiyaaliga ah ee wax kama jiraan ay aaminsan yihiin dadka ku nool Rome ee u yaqaanaa ilaahayga beeraha iyo aasaasiyaashii hore Romanka Romulus iyo Remus maalintaas ayaa loo dabaaldegay iyadoo loo furay xoolo badan iyo haweenka oo lagu garaaco hargaha xoolaha oo la aaminsanaa inay dhiirigelinayso taranka 1300 taariikhdu markii ay ahayd waxaa si rasmi ah loo fasaxay dabaaldega 14 Febraayo dhamaadkii qarnigii 5aad waa bilowgii fasaxaadka dabaaldega maalinta jaceylka adduunka Roman Pope Gelasius wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay 14 February ay tahay maalinta jaceylka adduunka dhaqan ka bilaabmay caqiidada guud ee dalka Faransiiska iyo Ingiriiska ee bilaabay isku geynta shimbiraha 14 Febraayo ama 14 February hadba sida aad taqaan dawladda Mareykanka ayaa qarashaad badan ku bixisa maalinta jaceylka adduunka ee 14 Febraayo 2019 waxay ku bixiyeen in ka badan $20 bilyan waxayna si xoogan u taageertaa fikirkan Mareykanka waxay lacag ku bixisaa hadiyadaha ugu badan ee 14 Febraayo la isku guddoonsiiyo sida ubaxa guduudan iyo chocolate-ka iyo hadiyado kale oo fara badan ugu dambeyn maxay diinta islaamku qabtaa arinkan iyo u dabaaldega maalintan haddii aanu islaam nahay nooma banaana arinkan waayo wuxuu lid ku yahay gabi ahaan diinteena sharafta badan taasi macnaheedu ma ahan in ay diinta diiday labada qof isqaba isla markaana galgacal iyo jacayl ka dhaxeeya ay hadiyada isisiiyaan maalmaha kale ee caadiga ah ee lama ogola ku dayashada gaalada iyo u gaaryeelida 14 February in ay tahay maalin qaas u ah jacaylka xitaa maalintan gaalada waxay sameeyaan isku tag xaraam ah isla markaana diinteena waxay naga reebtay xaaraanta walaalkayga muslimka ah waxaan kaaga digayaa ku dayashada gaalada iyo in aad
muhiimad siisid maalinta. nabigeena Muhammad aan ku salino sallallahu alayhi wasallam wuxuu nooga digay ku dayashada gaalada taa oo ugu dambeyn ku sababi karta in aad ku fasahaadid isla markaana diintaada sharafta badan ku weysid. walaal sii faafi fiidiyogan ugana faa'iiday walaalkaaga muslimka ah aanan ka warhayn arrinkan isla markaana adiga waxay ku noqon doontaa ajir ku soconaya insha Allah. waxaanu ka codsanaynaa inaad muuqaalka like saartid qaybta hoose comments-kana wixii fikir iyo faala iyo dhiirigelin ba inoo wareeg channel-kana subscribe inoo saar waad mahadsantahay.